subax wanaagsan guys, sida u dhantiin meel kasta aad joogtaan. Guys, waxaad ogaataan qof walba horta nasiibkiisa inuu saacidayo, waxaanan kuu qornayn idaan helin. Marka waxaan rabaa videogan kooban inaan idinkula wadaago shaxdii xalay iyo tii habeen hore dhacday. marka shaxdii xalay waxaa ugu horeysay Austria iyo Croatia. Croatia waxaa inoo saarneyd double chance sida hadda ka muuqataba. Double chance maadaama aan saarnay dad badan ay ku dhaliilayeen in Croatia xalay laga badi karo, laakiin iima muuqanin oo in Croatia inay badi karto ama bridge gali karto ayaa ii muuqatay. sidaas ayaan u saaray Croatia double chance. markastan waxaan idin dhahaa shax kasto aan diyaariyo maskaxdayda iyo anigoo dhowr meelood dad expert oo waxaa jira dunida oo wax saadaaliyo iyo website badan ayaan soo eegay, kadib ayaan horta shax soo geliyaa. marka Croatia xalay waxaa ii muuqatay inay badi karto ama bridge gali karto. shaxda labaad waxay ahayd balfiiri Denmark iyo France. 80% bulshooyinka caalamka waxay aaminsanaayeen France inay badi karto. 90% waxay aaminsanaayeen France inay badi karto. anigoo maskaxdayda iyo kaashanayo sidaas ay tahay France handicap aan u isticmaal. handicap koos ah France in aanan looga badi karin 2 gool. bal u fiirso, France in aanan looga badi karin 2 gool. daas waa marka halkaas oo qoysiinka ku jira u jeedaan wuxuu ka dhigan yahay 2 gool waaye. 1 gool xataa maanan dhihin oo Everton maanan dalbanin, laakiin hal waxay ka dhigan tahay 2. haddii 1 gool looga badi lahaa France refund ayaa heli lahayd, balse 2 gool ayaaba looga badishay. laakiin bulshada caalamka ma qabin wili xaalad dad badan ayaa ku khasaaray oo $100 qaarkood $10 dhigtay. youtube-da xataa dad qaar way soo gelin, waad arki kartaan. horta waa lagu khasaaray, laakiin aniga France aaba dhaabay inaan looga badi karin 2 gool waan looga badiyay mal asaf. marka tan khasaarisay waa tan. Netherlands imo balfiiri iyo Belgiumka aa ogtahay inuu yahay koox weyn oo awood badan. saas ay tahay kuma kalsoonaan dad badan waxay dhahaan Belgiumka uu badi karaa, balse kuma kalsoonaan. waxaan dhahay Belgiumka 2 gool ma looga badi karo. handicap isticmaalay waxaa ku heshay waxaa waaye ama aan ku helnay Netherlands aan iraahday Belgiumka ayaan waxaan dhahay 2 gool Belgiumka loogama badi karo. daas waa marka aan ku helnay. tan saddexaad Moldova iyo kooxdan Liechtenstein idinku qoran tahay. Liechtenstein iyo Moldova hadaa ogtahay 90 daqiiqo waxay ahayd eber ayay ahayd. 90 daqiiqo eber ayay ahayd. 93 daqiiqo marka 6 daqiiqo oo over ayaa lagu daray oo dheeri ah. daas waa marka ay ku timid 2 gool. 93 ma laga dhalisay Moldova, 94 isla markii way dhalisay. sidaas ayuu macna ciyaartan waxay soo galaysaa 10 saac soo galaysaa. waa ciyaarta ugu horeysay oo dhacisay ay ahaydba. waxa ugu dambeeyay ogteen kan Iceland iyo Turkiga iyo Iceland waa bedelna. hadaa xasuusataan shaxda hore waa soo daawo kartaa. waxaan dhahay Turkiga iyo kooxda Iceland. marka hore Turkiga waxaa soo saaray double chance, haddana waa ka shakiyay wax walba dhici kara. inkastoo Turkiga ay lacag yar saarneed halka kooxdan kale ay saarneed $9 meelahaas saarneed ama $10 saarneed, laakiin waa shaki wax walba laga yaabaa ayaa is dhahay waa bedelay. markaas waxaan dhahay 2 gool ayaa ka imaanayso. hadaa xasuusataan shaxda hore waa soo arki kartaa. marka guys, saas shaxdayna marka xalay markasto 100% shaxdayna waa gun. laakiin waxaa aragtay hal kooxood aadan filayn ama iyada ka filaynin. kooxii laga filayayna way noo badinaa, kooxa laga filayna ka badinayso. marka saas ay u dhacday. tan kale markaan waxaan rabaa shaxdi kale inaan imaano. shaxdi kale taaganahay markaan oo hay'adan habeen dhaxdaas dhacday. balfiiri Bulgaria iyo kooxdan kaleeto waxaana total over 2 gool way timid sida u jeedaan. tan khasaartan waa Jarmalka iyo Hungary aa u jeedaan. waxaan dhahay only Jarmalka koox weyn ah, qaran weyn ah aan dhahay. waxaa ogtay Hungary inay isku awood ahayn ay Jarmalka awood badan tahay. Jarmalka maxaan dhahay 2 gool ayaa ka imaanaysa. daqiiqada 25 daqiiqo markaas oo gool dhilasay. dad badan ayaa waxay dhaheen xataa hadaa ogtahan waa intaba youtube-da qaar xataa waa la soo dhigay sidaan arkay. dad badan ayaa waxay dhaheen
markay kuwa Hungary ay gool dhalisay Jarmalka laga dhaliyay dad $100 saarto dhaha Jarmalka badinayo dadka qaarna waxay dhaheen gool kala ka imaanay gool kale waa dhihi kartaa sometimes waxyaabo lagu faa'iiday kamid tahay hal gool inuu dhashtay inaad gool kala imaana marka qaar 1/5 cent meelahaas ay saaraan marka daqiiqadaha xoogaa ay socoto wadada dhawaan lagu hungoobo sida Jarmalka waa u jeedaan halkii lagu dhameeyay Italy iyo England imow maxaa dhahay Italy iyo England Ingiriiska waxaana 2 gool ma looga badinayo hal gool loogu badso win meesha saa ka hesho soo Estonia iyo Malta Estonia maxaa saaran double chance idana maana saasa win ku heshay Georgia iyo Republic kooxdan idana saa u jeedaan waxaan dhahay Georgia naftirkeeda 2 gool ma looga badinayo handicap 1 ayadoo way sidaas ayaan ku helnay win Bosnia iyo kooxdan iyo Montenegro saa u jeedaan waxaan isticmaalay ever day ku dhamaato ciyaartan inaan telefoon heli karno hal iyo ever haday ku badisanaya Bosnia oo win heli karno sidaas marka hal iyo ever ku dhamaatay Bosniana waxay heshay win helna aydan marka guys waxaan waa nasiib laakiin anaga sida ogtaan shaxdeena 100% win ayaan heli jirnay laakiin maalmaha sida arkaysa idinkaba inaa ila garataan loo baahan yahay koos wixii hadii saan xilliga qaar in kooxii lagu tashanay ama saasoo kale ama ayo handicap isticmaalin xataa ay loos garoobayaan waa nasiib marka nasiibkana saacidi doono aad baa mahadsantiin intaasina idin la wadaagaa rabay shaxda kale insha Allah iyadana ayadoo aad ugu feejiganahay aan soo dhigi doonaa mahadsantiin